waxaan marka hore u mahad celinayaa wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee soo abaabulay xaflad aan nooceeda lagu arag magaalada Muqdisho. waxaan mahad u celinayaa xildhibaanada iyo madaxda dowladda iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay iyo kuwa ay u suurtoobi weysay inay gudaha soo galaan laakiin bannaanka taagan idinkuna waa mahadsantihiin. waxaa kaloo mahad celinayaa 2 milyan oo qof iyo inta ka badan oo na daawanaysa idinkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan mahad gaar ah u celinayaa labadayda wiil ee Dayax iyo Xariir oo iyagu isu soo xilqaamay inaad codkiina isiisaan waxay iga dhigan tahay cod xildhibaan oo liisiyo kale waa mahadsantihiin. mudanayaal iyo marwooyin dhalinyaro iyo waayeel shacabweynaha Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dunida dacaladeeda ku kala nool kulligiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib waxaa sharaf noo ah inaad caawa nagala soo qayb gashaan madashan ujeedkeedu yahay inaan idinkula wadaagno fariintayda musharaxnimo iyo barnaamijka aan ku doonayo inaan dalka ku hogaamiyo haddii la ii doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. walaalayaal waxaan caawa halkan isugu nimid iyadoo dalkeennu ku sugan yahay xaalado isbarkan abaaro xooggan oo dabar jaray xoolaheenni halakeeyey nolosha dadkeennii oo dhan gaar ahaan reer guuraaga iyo bulshadeennii oo kala aamin baxday dhaqaalihii dalkeenna oo hoobad galay hay-adihii amniga oo xaalkoodu dayac yahay dowlad goboleedyada dalkeenna oo iyana la dhibban caqabadihii ka dhashay doorashooyinkii dadbanaa ee daba dheeraaday beeshii caalamka oo dowladnimadeenna quus ka taagan iyo rajadii shacabka ay ka lahaayeen dowladnimo hana qaada oo hoosu dhac weyn ku yimid. balse alla mahaddii waxaan nahay ummad yaqiin la nool oo ilaahay ku galladay islaamnimo waxaana nala gudboon halgan aan isdhiibid lahayn waxaana naga reeban quusta. dunidan ummad walba oo dowladnimada liibaan iyo horumar ka gaartay waxaa horseed u ah hoggaan ka dhabeeyey higsigoodii ummadnimo. ma yimaado isbeddel haddii aan la helin hoggaamiye isbeddel dhaliya oo ku hubaysan hiigsiyadii ummaddiisa u horseedi lahaa nolol ay ku naaloodaan dunida khayrkooda ahna kula tartamaan. walaalayaal anigoo hortiina taagan caawa shacabweynaha Soomaaliyeed waxaa iga go'an inaan dalkayga ka saaro xaaladahan dhan kastaba heedadowga ah. waxaa iga diyaar ah qorshaha aan ku doonayo inaan dalkayga ku hoggaamiyo dadkaygana ugu adeego kaasoo aan ku kalsoonahay inaan ka midho dhalin karno. waxaa iga lilaahiya inaan dalkayga dhab uga samata bixiyo marxaladahan mas'uulkoodii noqday dhaqaaqa joogsiga aan dhammaadka lahayn. barnaamij siyaasadeedkayga aan rajaynayo in qof kasta oo Soomaali ah halkiisa aan ku gaarsiino si kastoo aan ku gaarsiin karno qowl iyo qoraalba waxaa aasaas u ah 1 xog ogaalnimo. barnaamijkaygu wuxuu ku qotamaa waayo aragnimadii aan ka kasbaday xilkii aan ummadda u soo qabtay muddadii 3 sano iyo barka ahayd.
وأنا حفيز كجوجي يلا بدي سنة كدم بيسي أن كسر مغنى حفيزك إن كبدن لبعتن سنة وأن هيرر كل الدول كل شقي هي ده عالم كا دلال بدن ودون ذا كمدا لابو وحكو سليسين هي أركت عصب برنامج كيجو حقوق الطماع إن عندك كسوكر لأنه أركتي عصب وكترجم يسا باحدة دت كنا أو بقول كبا تضبط نيشان دليراه سدح وحقوق الطماع أمانه برنامج كان سيدو كلا وحدرف والبك حوجينايا إن هنتدا أمد الله هاي أما عالم كوجو دقي إذا اللوجو أديجو وأن لهم جريين هنتنا لقى طبعا وحابنا الدمانتين لسعطان إني أمانة دو هاي متكمدة تيركي جوا وينا أن سوقي مددي أن حلكو هاي أمد الصوماليات يكسيدا عاوة هلكن أن أمد الصوماليات وقصوا بندقني وكوان آمن سنة هاي تابقلين تودو إني الصومالي كبحن دونان إبكا أن كجرن هيكسي والبا أو كم إذا شنت هيكسي وحاهوسي ماذا هوله هرتبين له ودمان تود وحوين كتر دونا دولة ديسكينا يإندل كينو سيدك دق وقصوا كبتو burburkii na soo gaaray isku xirka hiigsiyada waxay xambaarsan yihiin faham ku qotoma si ay dawladdu dalkeeda iyo dadkeeda u kasbato wax ku soo kordhin karto taasoo macnaheedu yahay inay bixin karto adeeg caafimaad amni waxbarasho cadaaladeed rajana u abuuri karto shacabkeeda يكسجنا كواد أو أهان دونا أساس كدولة نمذا هدي لأي دورة حلكة وأهيكسجنا دقالها وفرها دبرس كدلكة ولا أنتيس أنا سورة قلا هين تابجلين تهيكسيا ذكلا برنامج سياسة ذاتكن سياسة درت وحصلتك أنقون دونا شقة دولة دس كدلكة حندجين دونا سياسة دقالة يقرش فلنيد والله حقيقينا يوهر مركز دقالة يدلكو وباهي هاي هيكسجا برنامج كهر مرين تدقالها وحاقد بدحاد وأهان دونا أبوريستا يهر مرين تا إله دقالة يدلكا سيدا كبعنتا وحصوصار كدلكا جناعسجا مالجشجا يصوصارستا خيرات كين الدهن يورشدينتا وحنكرو قادي دونا وحصوصاركا وحانا يرين دونا باهيها إنا بداي وحكست صوروفسكا قضبضا دقالها لغا قبان دونو مالين تكواد وان حفيز كنمام وانا دميسترنا هيدا دقالة يكو ماليديد ودونا دل جان قادي كرا وانا نحوجنا وذا شقينتا هيدا دقالها دلكا هيدا دقالها عالمكا وأنا نصود دابعنا العك سومالي سدتك سوماليات أيوه هيستان العك دقاله هذوك كبار وأنا نكشغينا أبو رستا يتيينتا كابياش الدقالة وأن ديرجلنا مالجش عالمي الدنيا أو نوع تماذا أو نوع مالجشن كرتسي شغل أبورو وأنا كيف في هذه السنة خيرات كأن الدبيع ديان صومالنا هاي وأنا بقولال كن أردنا لنيرة صومالية ذا شقو أبورنا مركان دقالا كبعنا وأن تاجر بوحدة سينا جناح ستة أما جناح سجير سببته يجا كشقية شق أبور وأنا مالن جكواد حوج يسوق الناس سيد أنا تاجر لهين ونكب لهين حول الليذا بين الليذا يكلوا ما يستدا سيدنا قال الله هلو ذلك أنا شغل الله قابور ما دام ذلك إنه فيها لجوب استراتيجية
وأنا تابجلنا سيدي أنكو سمين لهين أجا جناس أو حرقة ويدنيدو الصومالية كنت معه دام يدنيدو هرمرتي وأنا كشقينا كفائدة سجى تكنولوجيا العصرية شقوين كاس أن سوشيال وانكسو باران دقني ومهم سدلكو ونبكو وقبحو لونو كردية دخلقة يميسانية دا سي شعب كصوماليات لوغو هذيقو وعن ربائنا ندى حسوسية أنيقو وحان لوريقي حفيز كالرئيس الوزارة يادو انقصنا الدولة دا العكو جري يادو ميزانية دو ايتهاي لبابقول يلحدن مليون سنتكي وعن شغادة كتغي يادو قصنا الدولة دا اي كجرتو بقول يافر مليون دولار وحن شغادة كتغي يادو اي جدك كسو جرتو لح بقول يصدن مليون دولار عاوة نصيب درة وحا دولة دا صوماليات لقول لي هاي بقول يتضب مليون دولار او دين او إذن كلا إذن كرب إنات بحسان او كل عضي شغا حمو يمام الحماوية عاوة وحان دين شيغا يا نصيب درة إن لحد بقولوا مليون أو جدك كسو جرتي ومدى الصوماليات إي كجوكستي هفنان يمام الحماوية وحان هبا بقول كيبا بقول إناني تاسي دعدين أنيقو هي مسؤولية دالك وحان إذن كوكو بشارين هيا إن دق لو حلين دونو هدي اللي دورتو حلك مدحوينه مشروع ugu weyn oo dalkan laga hirgeliyay 20 la soo sano la soo dhaafay wuxuu ahaay inaan dalka Soomaaliya hay'adihiisa dhaqaalaha ku xirnay hay'adaha dhaqaalaha caalamka oo aan qarka u saarnay in deyntii qaar laga cafiyo aan ka soo tagay shaqada iyadoo intii kalena laga cafin rabo caawa dalku wuxuu khatar ugu jiraa haddii 15 bisha aan la dooran madaxweyne fahamsan sidii caalamka loola falgari lahaa in 17 May deyn cafintii dalka laga joojiyo Soomaaliya inay 7 sano kale dib u noqoto taasi waa arrimaha aan la damacsanahay dhaqaalaha dalka sugidda amniga iyo yegleelidda garsoor madax bannaan amniga iyo garsoorku Soomaaliya idil way isku raacsan tahay inay yihiin laba ka mid ah halbowlayaasha dawladnimo ee qaran ku tiirsan yahay waxaa iga diyaar ah hiigsi qaran oo aan ku hirgelinayno amni iyo garsoor la isku halayn karo bulshaduna ku hiran doonto waxaan fahamsanahay ka hogaamiye ahaan in adeeg caafimaad in la bixiyo mid waxbarasho laga shaqeeyo shaqo abuur la hirgeliyo dawlad wanaag lala dagaalamo musuqmaasuqo la helo garsoor madax bannaan intuba ay qayb ka tahay sugidda amniga haddii qof Soomaaliyeed uu ka fikiraayo in la sugo amni keliya in lagu keenayo ciidan waxaan rabaa in dib loo fikiro markaan leeyahay caqabada isbarkan dawladnimadu waxay u baahan tahay fahan guud oo isku cufan waxaan ka dhabayn doonaa dhismaha iyo horumarinta ciidanka madax bannaan siyaasad waxaan dib u habeyn dhan kasta ku samayn doonaa ciidamadeena si ay u gutaan waajibaadka ka saaran dhowrista dastuurka iyo shuruucda qaranka sida amniga muwaadiniinta iyo ilaalinta xuduudaha dalkeena dhismaha ciidanka waxaa qayb ka noqon doonta damaanad qaad buuxa oo xuquuqdooda ah taasoo aan gaarsiin doono in askariga shaqaynaya kan howlgab ka noqda kan dhaawacma iyo kan dalkan difaaciisa u dhinta intuba ay helaan xuquuqdooda iyo daryeelka qoysaskooda oo dhammaystiran dalka waxaan gelin doonaa dib u xoreyn dhab ah oo ay qayb ka yihiin dhammaan dawlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
si loo helo amni iyo xasilooni lagu naaloodo. intii aan joogay xafiiska Soomaaliya oo idil way og tahay waxaan dadaal badan ku bixiyay dib u habeynta ciidanka oo dhalisay in askari walba uu xuquuqdiisa si joogto ah u helo. waxaan bilownay dib u xoreynta dalka waxaana ku qanciyay dunida inay na garab istaagaan nana taakuleeyaan dhinac farsamo iyo dhinac dhaqaale si ciidamadeena geesiyaasha ah ay dalka u xoreeyaan. kasokow dib u habeynta ciidamada qalabka sida hadafka wejiga koowaad ee howlgalladii aan ka shaqaynayay waxay ahaayeen 1 xoreynta shabeellada hoose, 2 xoreynta xeebta, 3 xoreynta jidka isku xira magaalada Muqdisho ee Baydhabo, 4 xoreynta shabeellada dhexe si magaalada Muqdisho looga qaado dhagxaanta oo ay nabad u noqoto, kadibna si siman loo xoreeyo dalka oo dhan. waxaan rabaa inaan xasuusiyo markii aan howlgalladaas ka shaqaynaynay ciidamada dawladda Mareykanku waxay ka garab dagaalamayeen ciidamada Soomaaliyeed, waxay siinayeen agab iyo saanad ciidamada Soomaaliyeed, waxaa dushooda socday diyaarado si looga ilaaliyo miinada. soo eega buugagta nasiib darro taageeradaas waxaa u dambeysay 2 bilood kadib markii aan xafiiska ka soo tegay. haddii qof marka uu shaki uga jiray inay muhiim tahay in la fahmo sidii dunida loola dhaqmi lahaa sidii uu safiirkii halkan soo istaagay sheegay taasaa tusaale idina. qorshahayga waxaa qayb ka ah dhismaha iyo dhammaystirka golaha adeega garsoorka dalka oo la isla ogol yahay. waxaan samayn doonaa maxkamaddii dastuurka ahayd ee dalka, waxaan xaqiijin doonaa madax bannaanida garsoorka dalka, waxaan dabar jari doonaa musuqmaasuqa iyo laaluushka ragaadiyey hay'adaheena garsoorka, waxaan dhisi doonaa xafiiska gardoonka qaranka oo ah xafiiska ilaaliyaha dadweynaha. waxaan Soomaali u ballan qaadayaa garsoor u madax bannaan gudashada waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo howlihiisa maaliyadeed isla markaana ka madax bannaan hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta si uu u noqdo mid lagu kalsoonaan karo la iskuna hadlayn karo. haddii aan garsoorka la madax bannayn dunidu naguma soo dhiiranayso, maalgashi caalami ah la heli maayo, amniga lama sugi karo, dalkana lama xasilin karo. waxaan rabaa Soomaaliya inay fahamto inta uu madaxweyne digreeto ku haysto garsoorka dalka, dalkani lama jaan qaadi karo dunida inteeda kale. sidaas daraaddeed waxaan ballan qaadayaa in garsoorka laga madax banneeyo hay'adaha fulinta loona dhammaystiro agabka ay u baahan yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda, Soomaalina dadkaas Soomaaliyeed oo hawshaas loo igmaday ula xisaabtanto. dawladii say macno u yeelato waa inay dadkeeda wax ku soo kordhisaa. si dawladdu ay u noqoto mid kalsooni ka haysata shacabkeeda waa in qofka muwaadinka ah uu dawladnimada ka dhaxarka noloshiisa, sharaftiisa iyo jiritaankiisa shakhsiyadeed. waa inuu ka dareemaa caafimaadkiisa qof ahaaneed iyo kan qoyskiisa oo uu adeeg caafimaad ka helaa. waa inuu barbaarin iyo waxbarasho ahaan ka helaa hay-ado loo diyaariyey korinta aqooneed iyo waxbarista cilmiyeed ee qofka muwaadinka ah. sidoo kale waa inuu qofka muwaadinka ah uu dawladnimada ku haystaa kalsooni iyo damaanad qaad buuxa dhinaca amnigiisa qofeed ama kan ganacsigiisa. si aan dunida ula tartanno waa inaan leenahay bulsho aqoon iyo xirfad leh. waxaana ku dadaali doonaa bixinta adeeg waxbarasho aasaasi ah oo ay ka qayb geli karaan
dhammaan qaybaha bulshada hirgelinta nidaam waxbarasho dugsi sare iyo kuwa farsamada gacantoo tayaysan si dhallinyaradeenna fursad loo siiyo nidaaminta tacliinta sare ee dalka oo aan ku soo korrin doono xanaan lagu hubiyo tayada waxbarashada si dadka jaamacadaheenna ka soo baxa ay ula tartami karaan dadka dhigooda dunida ku nool waxaan ilaabi doonin oo aan dhiirigelin doonaa dugsiyo ay wax ku bartaan dadka Soomaaliyeed ee qaba baahiyada gaarka sidoo kale waxaa naga go'an in bulshadeennu ay tahay ama noqoto bulsho caafimaad qabta annagoo kaashanayna ururada dhakhaatiirta dalka waxaan xoogga saari doonaa dib u dhiska kaabayaasha caafimaadka iyo tababarista xirfadlayaasha waa in magaalada Muqdisho iyo dowlad goboleed walba laga hirgeliyaa isbitaallo bixin kara adeegyada caafimaad oo dadka Soomaaliyeed ay dibadda u aadaan waa inaan ku dhiirigelinaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo maalgashada dunida in halkan laga hirgeli karo isbitaalladaas si dadka Soomaaliyeed uu adeegaas ugu fududaado arrimaha la xiriira xaqiijinta dimuqraadiyadeynta si dunidu inoola macaamili karto la isuguna soo halayn karo dalka iyo dowladnimada Soomaaliya waa in dalku yeeshaa ama helaa xasilooni siyaasadeed oo la odorosi karo tobanaanka sano ee soo socda si taasi haddaba u dhawowdo waa in dalkani helaa dastuur inoo horseeda dowladnimo keenta xasilooni dhab ah taasoo shacabka Soomaaliyeed u horseeda inay si toos ah u soo doortaan madaxdooda iyagoon waxaan rabaa inay Soomaaliya maqasho iyagoon la kala sarraysiinayn kan wax dooranaya iyo kan la dooranayo midnaba macnuhu waxa uu yahay waa in dadka Soomaaliyeed ay isku xuquuq u ahaadaan cidda hogaaminaysa dalka haddaba si loo dhammaystiro dastuurka waa in laga heshiiyaa arrimo aasaasi ah oo ka mid yahay qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee dalka nidaamka doorashooyinka qaran maqaamka magaalada Muqdisho qaab dhismeedka dowladnimada xuduudaha gudaha xiriirka iyo iskaashiga heerarka kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo kala qaybinta awoodaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa in laga heshiiyaa garsoorka dalka iyo in laga heshiiyo hanaanka federaaleynta maaliyadeed ee dalka waxaa sidoo kale lama huraan ah inay khasab tahay in si qoto dheer dastuurka dalka dib u eegis loogu sameeyo siiba awoodaha fulinta iyo kuwa sharci dejinta si ay taasi u dhaliso xasilooni siyaasadeed ee dalkani u baahan yahay waxaa nasiib wanaaga in intii aan xafiiska joogay qodobadaasi oo idil aan ka diyaarinay xulashooyin kala duwan oo u baahan keliya hogaamiye isu keena madaxda dalka si looga heshiiyo caqabadaha hortaagan qabiiturka dastuurka Soomaalina ay uga gudubto isgoyskan ay ku meereysanaysay ku dhawaad 20 sano dhamaystirka dastuurkaasi wuxuu noo horseedi doonaa dawlad iyo madax ay soo doortaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan xoogga saari doonaa xoojinta hanaanka federaaleynta dalka taasoo adeegyada iyo awoodda daadejinta loogu dhaweynayo heer maamul heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo arrimaha la xiriira midnimada Soomaaliya waxay rabtaa nafurid waxay rabtaa wax quurid waxay rabtaa ku dhac sidaas darteed waxaa iga go'an inaan qaadno tallaabo kasta oo soo dhaweynaysa soo dhawaanshaha ummadda Soomaaliyeed waxaan bilaabaynaa wada hadallo dhab ah oo aan la galno walaalaheen Soomaaliland waxaan bixin doonaa garaawshiyaha ugu sarreeyay waxaan
ufududayn doonaa wax walba oo ka saacidaya dowladnimadooda si ay u dareemaan inaan nahay dad walaalaha oo isku dhiiga midnimadu uma baahna hadal iyo ka meermeerid laga meeraysto halka ay u dhimatay waxayse u baahan tahay in waqti lagu bixiyo wax kastana loo horo waana iga go'an tahay haddii ummadda Soomaaliyeed ay ugu aaminto xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda sidaad ka warqabtaan dunida waxaa ka socda isbedeladaasi waxa ay saameeyeen xaaladda qaaradda Afrika gaar ahaan gobolkeena Geeska Afrika isbedelada gobolka ka socda waxaa ummadda Soomaaliyeed uga dhex muuqda caqabado iyo fursado caqabadahaas saameyntooda haddaan lala falgelin waxay halis ku yihiin qarankan fursadaha isbedeladaasina si aan uga faa'iidaysano waxaan u baahannahay madaxweyne ku hubaysan aragti danta qaranka ka turjumaya ka qayb qaadan kara hoggaanka Geeska Afrika shacabka Soomaaliyeed ku matali kara dunida iyo gobolkaba Soomaaliya kama maaranto dunida sidaas darteed waa inaan hagaajinaa xiriirka aan la leenahay dowladaha dariska oo dhan iyo caalamka intiisa kale si marka aynaan ugu dhex amban hardanka isbeddelka dunida ka socda waa inaan fahamnaa muhiimadda ay leedahay siyaasadeenna arrimaha dibaddu sababtoo ah waa in siyaasadeenna arrimaha dibaddu u adeegtaa hiigsiyadeennii siyaasadda arrimaha gudaha taas macnaheedu waxay tahay in ciddii Soomaaliya doonaysa inay garab qabato aanay noqon kuwa iyaguna tilmaamaa balse nagu caawiya waxa annagu aan u tilmaanno walaalayaal waxaan aaminsanahay hiigsiyada aan idiin sheegay kulligood inaan u leeyahay faham mugdhaar waxaan aaminsanahay inaan ahay qof aad u fahamsan sidii dunidu u shaqayso maadaama aan sanado badan dunida ka soo shaqeeyey laakiin suurtagal ma aha sida aan 30 sannadood soo ahayn inaan sii ahaano sida aan 30 sano soo ahayn kuma dhalin karno dal midaysan nabad ah iyo dad heshiis ah ubadkeennuna lama tartami karaan caruuraha dariska iyo kuwa caalamka kaleba waxaan u baahannahay inaan sida ugu dhaqsaha badan isugu keenno ummadda Soomaaliyeed oo aan ka shaqeyno dhaba heshiisiin dhaba waxaan u baahannahay in ummadda Soomaaliyeed aan kulligood dareensiino wadajir keliya inaan uga gudbi karno caqabadaha hortaagan anigu waxaan aaminsanahay dalkeenna Soomaaliya waxna kama halaysna dad ahaan diin ahaan dhaqan ahaan iyo juqraafi ahaan intaba waxaa keliya oo inaga halaysan waa hoggaan la'aan maanta baahida ugu weyn waa hoggaamin ka mira dhalisa hiigsigeenna ummadnimo walaalayaal qorshaha qaran ee aan idiin soo bandhigay caawa oo sidaan u sheegay ah mid laga baaraan degay kuna salaysan khibradeyda gudaha iyo dibadda waan rabo inaan ku hirgeliyo ka daacad ahaanshahayga iyo jeclada iga haysa waddanka haddii ay Soomaaliya siiso fursadda maanta taagan waxaan idin ballan qaadayaa inaanay idinka khasaarin 4 sano oo dambe oo u aydaan 40 sano oo soo socda waa mahadsantihiin